mid ka mid ah diyaaradaha United Airlines ee ka shaqeeya waddankaasi Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa in 4 saacadood kadib markii ay ka duushay garoon ku yaalo magaalada New Jersey iyada oo ku sii jeeda magaalada Mallorca ee waddankaasi Spain ay dib ugu soo laabatay 3 saacadood 37 daqiiqo kadib markii ay garoonkaasi ka duushay. Arrintan ayaa lagu sheegay xaalad degdeg ah oo dhanka amniga iyo khalkhal soo wajahay diyaaradan oo nambarkeedu ahaa 767 oo ka kicitintay magaalada New Jersey kuna sii jeeday Mallorca oo Spain ah ayaa waxaa la socday oo rakaabkeedu ahaa 190 rakaab ah iyo 12 shaqaale ah kuwa oo ku wada sugnaa gudaha diyaaradan hawada ku jirtay. Arrintan argagaxa amniga gelisay diyaaradda ayaa waxa ay timid kadib markii shaashadaha diyaaradda ee dadku marka ay kuraasta saaran yihiin wax ka daawadaan ay si otomaatig ku soo qormeen 4 xarfood kuwa oo argagax walaahow iyo walwalba ku beeray rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaradda. 4 xarfood ayaa waxa ay ahaayeen BAMP oo marka la isku qabto noqonayso bam, taasoo walaahow walbahaar iyo argagax ku abuurtay rakaabkii diyaaraddaasi 190 ka badnaa iyo 12 shaqaalaha ahaa ee la socday. Waxayna taasi dhalisay kadib markii diyaaradda gudaheeda uu ka bilowday guux xooggan iyo cabsi iyo argagax in kabtanadii diyaaradda ay go'aansadaan in ay dib ugu soo laabtaan garoonkii ay ka duuleen 3 saacadood ka hor, taa oo ay ku guuleysteen in diyaaradda oo badqabta ay ku soo laabtaan garoonka iyadoo shaqaalaha diyaaradda la socdana ay dadka farayeen in ay iska damiyaan shaashadaha si aysan u sii argagixin oo aysan u sii arkin qoraalkan 4 xaraf ka kooban ee bam. Waxaana lagu soo waramayaa markii ay diyaaradda ku soo laabatay garoonka in baaritaan lagu sameeyay guud ahaan rakaabkii saarnaa lagana soo dejiyo oo diyaarad kale lagu wareejiyay, halkaasoo hay-adaha amniga ay baaritaan ku sameeyeen gudaha diyaaradda. Shirkadda diyaaradan leh ee United Airlines ee dalkaasi Mareykanka laga leeyahay ayaa ka gaabsatay in ay wax faahfaahin ka bixiso dhacdadan, sida ay u dhaceen iyo waxa arrintani kaliftay iyo cilada halka ay ka timid. Yeeshee rakaabkii ayaa si nabad ah uga duulay garoonka New Jersey iyada oo si nabad ah ugu degtay magaalada Mallorca oo ay ujeedkeedu ahayd ee dalkaasi Spain. Halka warka kiisa ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaan idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.